بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshada. Maanta waxaan ka hadlaynaa arrin aan ogaaday oo maxay hayto muhiim u ah caafimaadkeena. Arrintaas oo ah magnesiumka. Waxa la yiraahdo magnesiumka maxay tahay? Magnesiumka waa mineral uu jidhkeena u baahan yahay si uu shaqooyinkiisa u qabsado. Waa mineral muhiim ah. mineralkaas waxay ka masuul tahay in ka badan 300 oo action oo jidhka uu qabto maalin kasta ayay ka qayb qaadataa magnesiumka jidhka ku jira in ka badan 50% waxa ay ku jirtaa lafaha, inta kalena waxay ku fiirsan tahay jidhka intiisa kale. Marka magnesiumka badi waxa laga helaa lafaha, waa marka mineral u fiican lafaha. magnesiumka hadii ay ka yaraato waxay koos gareyn kartaa ama keeni kartaa murqa xanuun, lafa xanuun, maxay ahayto wadna xanuun, because maadaama ay murqa xanuun keeni karto wadnahana waa muruq sida aad wada ogtihiinba. marka wadna xanuun ayay keeni kartaa, hurdo xumo ayay keeni kartaa, lafa xanuun ayay keeni kartaa, marka dhibaatooyin badan ayay keeni kartaa. magnesiumkana waxaa la sheegay in dadka badi ay ka yar tahay maxaa yeelay cuntooyinka aan cunno oo daciif ah daraadeed magnesiumka dadka badi way ka yar tahay ayaa la yiri. markay ka yaraatana health problems badan ayay leedahay. marka waxaa jira 6 major mineral oo la yiri jidhka waa u baahan yahay. 6daas major mineral oo jidhka u baahan yahay waa calcium, magnesium, potassium, phosphorus, sodium and chloride. 6daas major mineral waa 6 mineral oo aad muhiim u ah jidhkana aanu sameyn karin ilaa aan siino, oo habka aan u siinayna ha ahaato hab cunto ka timid oo cunto ka soo jeeda, ama ha ahaato hab supplement ka timid oo dawo ahaan aad u qaadatay. 6daas major mineral jidhkaaga waa inuu helaa, maadaama aanu samaysan karin waa inaad ama cuntada xaggeeda ku siisaa ama dawo ahaan ku siisaa. marka maxay ahayto magnesiumka waxa kale loo isticmaalaa dadka athleteska ah ee carara ama sportka sameeya. magnesiumka waxa loo siiyaa inay murqaha u relax garayso markay ordaanay daalaan xanuunada iyo magaranaysa murqa xanuunka iyo waxa ay dareemayaan ayay ka bixisaa. marka dadka athleteska waa very common aad loogu isticmaalaa magnesiumka haday ka yaraato xanuuno badan ayay koos gareyn kartaa. xanuunada ay keeni karto markay magnesiumka ka yaraato waxaa kamid ah wadna xanuun, osteoporosis oo ah lafa xanuun, waxay keeni kartaa diabetes, type 2 diabetes, blood pressure, waxay keeni kartaa asthma, waxay keeni kartaa inflammation, migraine, waxay kaloo keeni kartaa hurdo xumo, dheefshiidka oo xumaada, waxyaabo badan oo caafimaad darro ayay keeni kartaa. marka magnesium deficiency wax sahlan ma aha, xanuuno badan ayay salka ku haysaa oo koos garaysaa. ha dhayalsanina. marka waxaan kula talinayaa in aad magnesium qaadataan oo vitamin ahaan u qaadataan, maadaama cuntooyinka magnesiumka laga helo uu dietkeena ku yar yahay. cuntooyinka magnesiumka laga helo hadaa idiin sheego waxaa kamid ah spinach, Soomaali maxaa la dhihi jiray costo. spinachka oo kale magnesiumka waa ka heli kartaan. swiss chartka bahalka ay yiraahdaan, mung beans anaga waxaan dhihi jirnay Soomaaliya salbukada magnesium laga helaa. almonds, cashew waa lows almond iyo cashewba, baradhada, pumpkin seed, avocado iyo mooska. alaabtaas cuntooyinkaas aan idiin sheegay oo dhan magnesiumka laga helaayaa la yiraahdaa. hase yeeshee maadaama cuntadii si qalada loo beerayo oo cuntadii aanay nafaqaba lahayn baaka iska tahay oo habkii loo beero cuntada la khalday, ha ku tashanina magnesiumka cuntada laga helaya. ha ku tashanina. taladayda waxay tahay magnesium inaad qaadataan ama kiniin ahaan u qaadataan ama iyadoo spray ah ayaa jirta. kiniinada marka waad baari kartaan. kiniinada waxa side effect yar ayay leeyihiin. side effect-ga leeyihiin kiniinka marka liqdid
jidhka markiiba ma absorb garaynayo kaniinka micnihi kaniin magnesium hataa dad dukaan kasoo gadatid oo liqdid absorptionkiisa ma fiicna calool maxaa dhahay calooshana wuu jilciyaayo wuxuu calooshaada micnihi wuu shubi karaa side effectiga uu leeyahay kaniinka kaasa ugu weyn inuu caloosha socodsiiyo marka hab kale oo aad u fiican oo aniga aan u isticmaalo loo isticmaalaa bahalka jira iyadoo spray ahaan loo isticmaalo oo korka lagu buufiyo waana habka aan idiin sheegayay aan idin dhahay dadka athleteska like maybe Mo Farah oo kale iyo markay orod dheer ay sameeyaan oo murqaha iyo lafaha ay xanuunaan waxaa lagu buufiyaa buufis waaye magnesium oil waxa la yiraahdaa lagu buufiyaa murqahay dejinaysaa magnesium oilka aniga waa isticmaalaa iyadoo la iibiyo suuqa taalana way jirtaa iyadoo aad samaysan kartidna waa jirtaa ta suuqa taalo waa yara qaali waa soo gadan kartaa laakiin inaad samaysatida kuu sahlan oo kuu dhaqaale fiican marka taal la isku shubayo korkaad ku buufinaysaa markiiba dhiigay raacaysaa jidhka markiiba wuu absorb garaynayaa waxba waste ma waste garoobayso dheefshiid system iyo luqluqyo ma marayso straight skinkaagaad ku buufinaysaa markiiba dhiigay raacaysaa oo benefitkeedii quickly ayuu jidhka u gelayaa marka bahasha faa'iidooyin badan oo caafimaadna way leedahay aniga waxaan u isticmaalayo kala murqa xanuunka iyo lafa xanuunka iyo juujuuca iyo waxaas oo dhan energy ku siinaysaa hurdo macaan oo guarantee ah seexanaysaa magnesium hadda isku buufiso sarta tagtid 5 minutes waa seexatay hurdo degdeg oo macaan ku siinaysaa murqahaaga relax garaynaysaa waxaan kaloo aniga ku daaweeyaa wiil aan dhalayaa migraine qaba marka migraine-ka wiilka markuu qabto halkaas iyo halkaasaan uga buufiyaa magnesiumka labadaas dhafoor baa la dhahay labadaasaan uga buufiyaa magnesiumka ookiyaalo waa inaad gashataa because iftiinka indhaha uma fiicna markuu migraine-ka ku qabto ookiyaalaad gashanaysaa magnesiumkaasaa isku buufinaysaa si degdega ayaad maxay ahayd uu migraine-kii kaaga tegayaa marka migraine-kana waa ku daweynaa annaka oo waa iskaga daaweynaa xagga hurdada waa ku daaweynaa lafaha iyo murqaha iyo daalka iyo energy-ga iyo waxaasoo dhan waa u isticmaalnaa marka maxay ahayd sida loo isticmaalayo guud ahaan ayaan idiin sheegaya inkastoo magnesium oil ay ku magacaaban tahay magnesium oil ma aha magnesium wax saliid ma aha originally saliid ma aha laakiin waa biyo iyo cusbo la isku qasay magnesium oil aa dhalada ku qoran laakiin waxa waaye originally waa biyo iyo cusbo la isku qasay waxa laga sameeyay solution-kan biyahaas iyo cusbadaas dhala spray bottle ku shubaysaa waa isku buufinaysaa that's it benefit-kii oo dhanna waa helaysaa straight ay dhiig u raacaysaa hadda marka sidii loo sameynayay aan idiin sharaxayaa ma sameynayo laakiin waa idin tusayaa marka magnesium oil-ka idin tusayaa waa tanaa dhaladeeda magnesium oil health food stores-kay taalaa magnesium oil la dhahaa original waaye this one haddaa rabtid waa spray waxaa waaye ilaa 12 spray isku buufinaysaa waxaa ku buufinaysaa caloosha cajirada lugaha dhabarka qaarka saraha isaga buufin haddii aad migraine-ka u isticmaalaysid meelaha waa ku buufin kartaa that's it wajigaaga meel kale ha kaga shubin laakiin caloosha kale ku shubi kartaa xudunta iskaga shubin caloosha meelahan caloosha meesha xudunta ka hooseyso cajiradaada dhabarka lugaha cagaha hoose oo lagu istaago waa ku shubi kartaa waa ku buufin kartaa benefit-keedii oo dhan waa sheegay kuma celinayo aniga marka waxaan sameeyaa taas waa igu qaali waxaan sameeyaa marka tan waa cusbaa ku jirto baakadan cusbadaasaan marka maxay ay tahay hal bakeeri oo magnesium salt waay waxaan magnesiumka hal bakeeri iyo hal bakeeri oo biyo marka aniga waxaan isticmaalaa distill waterka waxaan maqaali karaa talo distill waterka waa kana haantaanaan soo gatay online aan ka dalbaday waxyaabo badan aan ku samaystaa magnesiumka kamida waxyaabaha aan ku samaysto iyo face wash iyo alaabooyin badan aan ku samaystaa marka distill water waaye biyahan distill waterka haddaadan heli karin dhib male biyo filtered ah oo aad karkarisay oo aad qaboojisay ayaa sameynaysaa marka biyaha dabkaad saaraysaa biyo filter garaysan
hal bakeeri biyo ah dabka saaraysaa oo filtered water ama distilled water ah markuu soo karkaro dabka ka daminaysaa hal bakeeriyo magnesiumki ah ayaad ku shubaysaa kan hal bakeeriya ku shubaysaa waa ku walaaqaysaa markay isku milmaan qaboobaan dhalooyin aad ku shubanaysaa dhalooyinkaan ku shubtaa aniga yar yar carruurta u qaybinaysaa dhalooyinkaan ku shubanaysaa markaasaad waa spray bottle waa kaasa spray bottle waaye waa buufinaysaa saasa u buufinaysaa 12 inta doonto isku buufinaysaa jirkaad marmarsanaysaa waxaad dareemaysaa relaxation badan si kalena waa loo isticmaalaa haddaad baadka galay sidoo kale hal bakeeriyo kan ah iyo cusbo Himalayan salt ama Epsom salt oo kale baadka haddaad rabto inaad relax garaysid relaxation fiican ku siinaysaa aad u fiican oo aadan qiyaasi karin waa u isticmaali kartaa waxaan kale u isticmaalaa aniga for example qof waayeel hadduu idin joogo guriga oo kale buufiskana u isticmaali kartiin markay dadka waayeelka ay meesha iska fadhiyaan oo kale kursi ku fadhiyaan bakeeri kan ah caag intaad ku shubtid aad lugaha loo gelinaa nus saacad lugahooda ha ku haystaan biyahaas ayagoo iska fadhiyo kursigooda caaga biyo ugu shubaysaa nus bakeeri hal bakeeri maaha sorry nus bakeeri kan ah ayaad ugu shubaysaa biyaha ugu qasaysaa biyo warm ah qofkaas kursigiisa iska fadhinaya cagahu saaraya cagaha cagta hoose meelaha laga qaato ugu fiican ayay kamid tahay murqahoo dhan relax noqonaya dadka waayeelka meel kasta ay xanuunayso korkoo dhan ay xanuunayo waa kuwa dhahaan qofka waayeelka waa u fiican tahay murqahoo dhan ay u relax garaynaysaa muruqoo dhan ay u fiican tahay wadnaha waa muruq wadnahay u fiican tahay meel kastay u fiican tahay oo muruq ah energy lama qiyaasi kara idin dhahay faa'iidada bahalkan videoga ya idinku dheeraynin ka faa'iidaysta wixii su'aalaha qabtaan way soo weydiin kartiin videogan haddaad jeclaysateen thumbs up haddaad maxay ka faa'iideen subscription videoyo kale oo faa'iido lehna insha Allah waa keeni doonaa waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh